Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabduqaadir Cabdullaahi. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan diyaaradda qeybaheeda aasaasiga ah iyo waxa keena diyaaradda inay hawada ku duusho. Mowduucii hore waxaan kaga hadalnay civil aviation-ka waxa la yiraahdo, general ahaan aviation iyo qeybuhu u kala qaybsamo iyo qeyb walba meesha ay hoos tagto. sidaa darteed maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo mowduuc la xiriira oo ah si qoto dheer u sii fiirinaya duulista, maxaa keena diyaaradda inay hawada gasho, quwadaha ku hareeraysan diyaaradda inaan kala baranno. Haddaba ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Marka hore, quwadaha diyaaradda ku hareeraysan waa 4. waxaa la yiraahdaa 4 forces of aerodynamic. Aerodynamic waxaa la yiraahdaa shayga inuu ku dhex socdo hawada. Marka waa afarta quwadood ee ku hareeraysan diyaaradda. Quwadan waxaa la yiraahdaa thrust. waa quwadda hore u jiida diyaaradda. Diyaaradda inay hore u socoto oo speed u imaado waxa sababta u ah awooddaasi waxaa la yiraahdaa thrust. waxaa ka soo horjeeda oo opposite ku ah drag oo ah jiidmasho. Jiidmashada waxaa keenaya maadaama shaygan ama diyaaradda ay ku dhex socoto hawo dhexdeeda, hawadu waxay sameynaysaa resistance, iska caabin ay sameynaysaa. Iska caabintaas ay sameynaysa ee gadaal ka imaanaysa ayaa waxaa la yiraahdaa drag. sidoo kale awoodda ama quwadda sababta u ah diyaaradda inay kor u kacdo waxaa la yiraahdaa lift. Liftigaasi muxuu ahaay waa diyaaradda waxa kor u qaada ama shayga hadduu ahaato baalun ha ahaato ama diyaarad ha ahaato ama rocket ha ahaado, waxa kor inay u qaado keenaya waxaa la yiraahdaa lift. waxa dhaqaajinayana quwadda dhaqaajinaysa iyadana waxaa la dhahaa inay hore u socoto ama diyaaradda sababta u ah iyadana thrust Allah. Liftiga marka waxaa ka soo horjeeda oo opposite ku ah weight. Weight-ka waxaa keena gravitation force ee dhulka ka yimaanaya. Jiidmashada dhulka ayaa keenta. Marka waan u tagi doonaa mid walba inaan mid u qeexno. Insha Allah si fiican ayaad uga bogan doontaan. Ugu horreyn waa maxay thrust? What is thrust force? Thrust force waa quwadda dhaqaajinaysa diyaaradda. Plane waxay noqon kartaa nooc walba oo diyaaradda ay ahaato macnaha. Forward inay hore u dhaqaajiso quwadda keenaysa waxaa la yiraahdaa inay diyaaraddu horadan u socoto. Quwadda keenaysa waxaa la yiraahdaa thrust. Propellerka waa marwaxadda. Diyaaradaha qaarkood waxay leeyihiin propellers. matoorada diyaaradda ku xiran ee kuwan ah noocyo kala duwan ay leeyihiin. Diyaaradaha qaarkood inta ugu xiran yihiin propeller inta ugu xiran. marka propellerkaas matoora ka hooseeyo oo dhaqaajinaya wareejinaya. marka propellerkaas boolis uu jiidaya plane forward. diyaaradda hore u jiidaya. Jet engine also pushes a plane. sidoo kale diyaaradda matoorkeeda tan jet engine waa nooca propellerka ma ahan. sidaa darteed engine-kaas diyaaradda wuxuu u riixaya asagana horey. marka propellerka iyo engine-ka ayaa soo saara thrustiga. muhiimadda uu ka wada sidaas weeye. haddaba thrustiga waxaa ka soo horjeeda drag, quwadda dambe. quwaddaas dambe waa maxay? It's a mechanical force. waa mechanical force. Mechanical force markii lagu leeyahay mechanical force-ku waxaa weeye shayga quwadda ku haysa motion. hadduu shaygaas socdo quwadda sii dhaqaajinaysa marka afartanba waxay isla yihiin mechanical force. haddii shayga taagan yahayna quwad baa istaajisa. quwadda istaajinaysana mechanical force la yiraahdaa sidoo kale. marka waa mechanical force generated by a solid object. waxaa soo saara solid object, shay adka ah oo moving through a fluid, ku dhex soconaya fluid. waxaa la yiraahdaa water and air. hawada iyo biyaha waxaa la yiraahdaa fluid ama dareerahaba. marka si kooban qeexitaanka NASA ay ku qeexday drag
or mechanical force generated by a solid object moving through a fluid. Si aan si fiican ugu sii fahanno waxa keena drag air resistance iska caabinta hawada ee shayga ku dhex socda macnaha iska caabinteeda ayaa quwaddan soo saarta. marka thrustiga waxa opposite ku ah drag intuu ka yimaada thrustiga oo muxuu aan ka wadaa hawada iska caabinteeda ama air resistance-ga. marka si kooban waxa u fahmaysaa drag inuu yahay quwadda dambe ee keenta ama ka dhalata in hawada iska caabinteeda maadaama shay adka ah oo ku dhex socdo hawadu waxay sameynaysaa iska caabintaasi dambe ayaa waxa loo yaqaanaa drag. simply waxa u fahmi kartaa sidaan oo kale inay tahay quwad jiidasho ah macnaha jiidaysa diyaaradda gadaal ahaan u jiidaysa. waxa opposite ku ah thrust. marka waa taas waxay u sameeyeen qaab in si sahal ah u fahantid wax gacanta xarig ku jiida ma jirto laakiin hawada iska caabinteeda ayaa waxay sameynaysaa jiidmasho. aan u imaanno quwadda saddexaad oo ah lift. waa maxay lift tusaale ahaan marka aad raacaysid wiishka kale waxaa la yiraahdaa lift maxaa yeelay kor buu ku qaadaya. so diyaaradda quwadda kor u qaadaysa waxaa loo yaqaanaa qaybta koreeta ah lift ayaa loo yaqaanaa. mechanical force generated by solid object moving through a fluid. definition-ka marka waa si guud waaye waa sidii kudi isku mid ka yihiin. solid fluid waxa waaye solid object waa diyaaradda waxayna ku dhex socotaa fluid oo ah hawada. waxaan dhahnay fluidku waxaa loo yaqaanaa water and air. sidaa darteeda qeexitaanka uu bixinayso NASA waa qeexitaan guud. liftiga waxaa soo saara the whole aircraft. diyaaradda qaabka u samaysan tahay dhan ayaa keenaysa in diyaaraddu muxuu ahaay lift ay hesho. marka waana kaga hadli doonaa hadda wax yar kadib aan ka hadli doonaa marka weight ka hadalno sida ay u imaadaan diyaaradda kor ugu kacdo iyo waxa keena iyo marka waxa ogaanaysaa lift inuu yahay quwadda kor u qaada diyaaradda. intaas waa noo filan tahay. aan u imaanno quwaddii ugu dambeysay oo ah weight. liftiga waxa opposite ku ah oo ka soo horjeeda weight waa maxay marka? weight waxa waaye waxa keena gravitation attraction soo jiidashada dhulka of earth. dhulka wuxuu leeyahay jaadibiya soo jiidasho waxaana tusaale kugu ah marka qofka hawada sare u tago waataan daawateen oo malaynayaa sidaan rajeynayo muuqaalada ay soo qaado NASA oo kale inaysan jirin qofku inuu iska dulduulayo meel taagnaasho aysan jirin. macnaha shay haddaad tuurtidna weligiis soo soconaya maadaama ay ka mid ahayd Newton's law of motion. shayga hadduu xaalad ku sugan yahay taagnaasho wuu taagnaanaya weligiisa ilaa quwad dhaqaajisa uu helo. shayga hadduu in motion uu ku jiro macnaha moving uu yahay oo dhaqaaqayana weligiis soo soconaya ilaa quwad istaajiso uu helo. marka dhagax markaad tuurtid waxa soo ridaya waa quwad ma ahan inuu asaga iska soo dhacay ma ahan. quwaddaasi marka dhulka ku jirta la yiraahdaa gravitation ama jaadibiya ayaa keenta marka qaybtan hoose xiriir la leh. sidaa darteed waxaa jirto waxa la yiraahdo diyaaraddu ay leedahay center of gravity dhaxbartamaha gravity-ga. center of gravity waxa waaye meesha culayska diyaaraddu isugu yimaado macnaha balance inay noqoto. waxaa la rabaa culayska dambe iyo culayska hore inay balance ka yihiin meeshaasi meesha xudunta u ah ee tahay. haddii center of gravity ay gadaal tagto tusaale ahaan haddii culayska diyaaradda cargo-ga ay waday inta isugu tago waxaa ka imaanaya shil oo wax la yiraahdo waxay gelaysaa stall. waana jiraan diyaarado ku dhacay waana daawan doonaa haddadan diyaarad ku dhacday waddanka Afghanistan oo cargo ahayd ayaa waxaa dhacday in culayskeedii uu isugu yimaado halkaas. waxa keenana waxay kor u qaaday angle of attack waxa la yiraahdo. angle of attack waa xagasha
afka diyaaradda ama diyaaradda meesha afkeeda ah iyo relative airflow inta hawada ah ee ku aadan qulqulka hawada ee ku aadan inta u dhaxaysa waxa la yiraahdaa angle of attack marba ka hadli doonaa angle of attack hadda kor u qaado marka xagashi hadday kor u qaado waxa imaanayso in weightki ama culayskii diyaaradda saarnaa uu gadaal isugu tago markuu gadaal isugu tago diyaaradii inay gadaal u dhacdo oo markaasi ay xamil weyso diyaaradda awood u yeelan weyso inay ka balance samayso sidaa darteed aan daawano muuqaal yar oo ku saabsan xaaladaas kani waa xarunta ciidamadii Mareykanka ee background marka diyaaraddan waxay ahayd cargo ah kor bay afkeeda u qaaday angle of attack ayay badisay culayska gadaal isugu tagay kadibna waa aragtaan si u burburayso oo kama soo harin kuddi waa baaba'een wixii saarnaa iyo cargo-gii shaqaalihii kuddigooda waxba kama soo harin saameynta central of gravity ay ku leedahay diyaaradda taasaa tusaale kugu ah shilkaasna waxaa sabab u ahayd culayskii oo gadaal isugu tagay central of gravity oo gadaal u tagtay haddaba goormay diyaaraddu kor u kacdaa goormaysa horey speedkeedu u bataa haddii thrustigan awoodda quwadda thrustiga hadday ka badato quwadda dharaaga ee jiidmashada diyaaraddu waxaa ziyaadaya speedkeeda sidaa darteeda lift greater than weight markuu yahayna aanu imaano liftiga thrustiga aanu imaano waxaan hadda ku hormaraynaa liftiga hadduu ka hormaro tusaale ahaan weightka hadduu ka bato lift greater than weight liftigan hadduu ka cuslaado oo ka bato weightka culayska hadduu ka bato macnaha gravitationka quwaddii dhulka ee soo jiidashada haddii ka awood badato quwaddii kor u kicidda ay diyaaraddu soo saaraysay diyaaraddu kor bay u kacaysaa waxaa increase noqonaya altitude-ka diyaaradda markaasi cirkay gelaysaa kor u soconaysaa haddii weightka hoose quwaddaani hoose gravitationka haddii ay yaraato macnaha haddii ay badato oo liftiga ay ka badatana diyaaradda hoos bay u dhacaysaa macnaha hoos bay u degaysaa sidaa darteeda liftka haddii increase u noqdo waxaa increase noqonaya altitude-ka kor noqoshada diyaaradda inay kor u kacdo haddii liftiga yaraado oo weightka u batana diyaaradda hoos u dhacaysaa xiriirka ay leeyihiin waa saas waay opposite waxay isugu soo yihiin marka drag hadduu ka bato thrustiga diyaaradda tartiib u soconaysaa slow way noqonaya drag waa tan haddii awoodda dragga ee jiidmashada ay ka badato awoodda hore u dhaqaajinaysa diyaaraddaas tartiib u soconaysaa macnaha speedkeeda yaraanaya haddii thrustiga uu ka bato greater than drag u noqdona plane accelerates diyaaraddu xawaaro badan speedkeeda macnaha ayaa ziyaadaya marka waa muhiim in aan fahanno mabaadi'da iyo forceska quwadaha la xiriira diyaaradda si aan u fahanno aqoontan muhiimka ah marka mawduucina maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa channelkana waxaan rajaynaynaa dhalinyarada inay iyo dadka daawanayaba dhammaantiin inaad rukumataan oo sii share gareysaan maadaama aan soo gudbinayo wax aqoon ah oo muhiim ah inta badan waxyaalo badan baa laga hadlaa laakiin dhalinyarada muxuu ahaay barnaamijkan aniga waxaan ugu talagalay dhalinyarada inay ka wada faa'iidaystaan anigana ay ii noqoto qaab muraajaca maadaama qof markuu wax soo gudbiyo wixii ay kusii nagaanayaan asagana baxthi uu sameynayo marka mawduuciga maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan sidoo kale rajaynaynaa inaad sii shargashaan oo la tafaacushaan sidoo kaleeto akoonadeyda xisaabaadka aan ku leeyahay facebooka iyo instagramka hoos ayaan idinkugu soo shargareyn doonaa waxaan idin rajaynayaa khayr badan intaa ka kulmi doono midkan la mid ah isbuucyada soo socda ama isbuuca soo socda insha Allah waxaan isku dayaa isbuuc walba inaan mawduuc soo dhigo faa'iidadiisana leh oo aan kaga hadlayno aqoontan waa aqoon aad u ballaaran mawduuc ka mid ah waxyaalahaas muhiimka ah
saas ayaan isku ognahay khayr badan idin rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.